kusoo dhawow waa casharkii toddobaad oo koraskeeni ahaa Microsoft Windows 10 waa casharkiisii toddobaad. Waxaan casharkan ku baran doonaa sida maximize window sida maximize loogu sameeyo, minimize window qaabka loo yareeyo oo minimize loogu sameeyo, close window qaabka loo xiro, and resize iyo window qaabka resize loogu sameeyo. maadaama afar topic way ayuu casharkan ka koobnaan doonaa, afartoodana waxa waaye maadaama isla xiriiraan waxaan ku soo koobi doonaa halkan muuqaal marka aan sameeyno aan isla socono. waxaa sameynaysaa tusaale ahaan folderkan ayaa furanayaa sawiradan kili ku dheh. marka kili ku dhaho folderka waa ii furan yahay. marka aan haddii aan dhahno maximize window qodob baa idin faahfaahisi doonaa. maximize window maxaa waaye? window horta maxaa loo yaqaanaa? window waa laba window ayaa dadka sida guud la yaqaanaa. window midka ku jira computerka, softwareka computerka lagu shubo waxaa loo yaqaanaa window ayaa loo yaqaanaa. software waa operating system oo computerka ku shaqeeya. okay, windowga kaleeto oo hadda anaga aan ka hadlayno oo sharxayno maxaa waaye oo ciwaankan ku saabsan yahay waxaa waaye maximize window lagu sheegayo daaqadan ii furan folder markii aan click dhaho oo furo waxa ay soo baxaya boxkan weynka waxaa loo yaqaanaa oo hadda shaashadeena ka muuqdo boxkan isla socdo waxaa loo yaqaanaa window. markii aad furtid daaqad caman window ii furmay, ma fahanti? marka daaqadan ii furmatay waxa waaye folderka gudihiisa ku jira. marka folderka gudihiisa anaga oo ka shaqaysanayno waxaan sameyn karnaa marka maximize window inaan maximize ka dhigno windowga inaan weyneyno. qaabka u weyneynayna marka waxaan u weyneynayna bog inta tagay meeshan hadda dul istaaga fiiri muxuu soo qoray maximize oo soo qoray ma jeedaa. click hadda ku dhaw meeshaas maxaa soo baxayo inuu shaashada isla ekaysiyo wuu ballaartay. ebel muxuu ahaa qayb kamid ah shaashada oo hadda muxuu wada qaatay dhammaan afartiisa gees fiiri afartiisa gees wuxuu qaatay shaashadii oo idil ayuu isku ballaariyay ayuu isku fidiyay, ma fahanti? marka hadda waa maximize ayaa ka dhigay waa ballaariyay. okay, sidee marka minimize uga dhigaa? minimize window qaabka minimize looga dhigaa. tusaale ahaan aniga oo windowgan ku dhex jiro folderkan oo wax isticmaalaya ayaa waxaan u baahday inaan asiga iska yareeyo oo hoos dhigo si aan folder kale u furto ama shaqo kale aan u qabsado ama dukumiinti aan qorayo qoraalka u sii wado. maxaa sameynayaa? ma wada xirayaa? maya, ma wada xiraysid. waxaa sameynaysaa calaamada menista aad tegaysaa. maxaa isoo qoran minimize, ma jeedaa? minimize kaas hadda ku dhufatid asiga uusan xirin adiga oodan xirin windowgan kuu furan ayaa hoos dhigi kartaa. hadda click ku dheh. click markii aad ku dhaafeeri waa soo laabay bogga waa laabay laakiin ma wada xirin ya. folderka waa laabay hoosaa dhigay waa kan qaybtan hoose ayuu u yaalaa. miiga xirna waa ii furan yahay balse hoos ayaan dhigtay minimize ayaan ka dhigtay. bal igu celi bal asigaan ku dhufanaa marka u baahdo. waa soo kacay soo maaha. hadda marka waxaan baranay inaan minimize gareyno iyo inaan maximize ka dhigno ballaarino. qodobka kan ku xiga maxaa waaye oo asna fahmi karno maxaa waaye inaan restore ka dhigno. resize laga wadaa, ma fahanti? inaan soo yareyno marka aragtid inaad qaab caadi u soo celisid kana tagaysaa, ma fahanti? restore down marka click siiyo hore qayb yar isku soo aruurinaya. afarta gees oo shaashada uu ka fadhiyay wuu ka soo aruurayaa sidiisa hore ee dhexdhexaadka ahaa ayuu ku soo laabanayaa. intaas ma la fahanti? marka aan rabo inaan xirane waxaan sameynayaa close window xir markii lagu dhaho rabtid shaqada inaad ka dhameysatay oo rabtid inaad wada close gareysid oo wada xirtid simply waxaad tegaysaa calaamadan oo istilaabka ah, calaamadan x-ka ah oo istilaabka ah close. haddaad dul istaagtid magacaasa ku soo qori doona. close-taas ayaa ku dhufanayaa. sidaas muxuu isku xidhay windowgii folderkii aan ka shaqaysanaynay waan close gareynay waan xirnay. inta casharkan mid lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaa inoo ballanay casharka kan xiga. wabillahi tawfiiq.